kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo ixtiraamka inaga mudan oo caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo xilli walba idin tahayba waqtiga haydii wacnaado waayana idin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin leeyahay kale iyo muuqaal horle aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha badan ee aad inoo garab taagantihiin ama aad wada socotaan oo aad channelka ku taageertaan inta baan idinkaga mahadcelinayaa inta dib inooga soo biirtayna aad bay u mahadsantahay inta horay u joogtay ee channelka waqtiga dheer iyo waayaha la soo qaatan waxaan idin leeyahay sharaf iyo karaamo iyo cizi dushiina ha ahaato inta soo socotan waxaanu leeyahay subscribe gareysta channelka oo videoga like gareysina share gareey asxaab badan la wadaaga si uu u gaaro meel fog yoolka channelkana uu u gaaro mar walba waxaan u heelanahay ama aan u xusul duubanayna sida aan idinku qancinayn ama barnaamijyo qurux badan oo aad waqtigiina iyo waayihiina kula madadaashaan aad ku heli lahaydeen mid kalena waxaan aad u jecelahay channelka inuu mar walba ahaado mid ku suntan Soomaalinimo iyo walaalnimo iyo isjacayl iyo in aan runtii waxyaabaha wanaaga ah ama waxyaabaha jiro aan sida ay tahay idinku soo gudbiyo oo aan idin la wadaago hadii uu Raxmaanka inoo idmo maanta waxaan inoo hayaa Sharmaake Cabdinaasir oo ka baxay fanka laakiin hees yar oo luuqa oo afka ku qaadaya ayaa waxaan doonayaa videogaasi waxba iga soo dhax muuqday marka koowaad waa su'aal waxaan idin deyn doonaa idinka marka ugu horeysa aragtida aad aragtid waxa aad waxyaabaha la yaab kale oo Sharmaake ku soo bandhiga ayaan doonayaa in aad adigu aad markii videoga bilowga aad daawanaysid in aad ka soo dhax saartid kadibna marka aad daawatid commentiga ayaad noogu reebi doontaa waxa aad ka dhax aragtay ma ahan markii aan aniga ku sheego oo videoga inta yarta aad kugu talagal markay dhamaato ulama jeedo inta uu socdo intaas yar ee Sharma Boy heesta uu qaaday waxyaabaha kaaga dhinac muuqdo ama waxyaabaha aad arki doontid oo la yaabka kugu noqdo ayaan doonayaa inaad ila wadaagtid hadii ay Raxmaanka idmo horta videoga ayaan idin soo deyn doonaa waxyaabaha aan anigu markaas moodayeen waan idin soo raacin doonaa oo waan wada falanqeyn doonaa bal marka ugu horeysa muuqaalka daawasho wacan labada shay ee mucjisaadka ah ay markaas heesta ku jirto oo ahaantii aniga aan ka soo dhax saaray ayaa waxa ay tahay mid koowaad si guud waxa uu sheegayaa in uu jikada run ahaantii meelaha qaar walaasheen milyan maanka raali aaw ay yaani markaas aysan garanayn sida hadda ka horba oo sida noola wadaaga oo yiri canjeer karinta ma taqaan xajiita waa adduunyada qof walba qof dadka qaar waxba dhibo waxyaabo aynan garanayn ama ku culus way iska jirtaa taa muhiimadda ugu weyn ma ahan ee aan u socdo muhiimadda ugu weyn waxa ay tahay inta uu heesta Sharma qaaday xaqiisa dambe waxba inooga muuqday wixii yaryaraayeen dhaheena ay qabanayeen maxay kula tahay anigu markiiba waxaan u qaatay Cabdinaasir yare adigu waxa ay kula tahay waad nala wadaagtay aan jeclahay ee hadda marka halkan soo gaartid hadii aad nala wadaagtid runtii waxa ay noqonaysaa in aad markaasi anigu markaan ku sheekay dib aad aragtay laakiin waxaan doonayaa sida loo kala dhiifoo yahay in aan ogaano waxaan rabay marka ugu horeysa aad soo aragtay commentiga inaad nagu la qaybsatay laakiin hadii aad fahmi weyday dib ma laha dadka isku wada aragtay ma ahan mana ama suurtagalna inooma noqonayso in aan dhamaan suurta indhahayna ay isku wada mid u shaqeeyaan ama ay isku si u shaqeeyaan wax suurtagalaya ma ahan waxyaabo macquulana ma ahan laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay sida quruxda badan ee familkan isugu soo laabteen bal maanta cid ay shaki uga jirto ma lahan inay isku soo laabteen Sharma Boy iyo Milyumaanka waxay qabsan rabaan laakiin oo Ramadaan ka soo dhaxgalay xaflad yaab leh xafladaasina waxa ay noqon doontaa xaflad cajiib ah sababta xafladaasi marka Ramadaanta ka hor ayay isku soo laabteen sidaynu ogeen Shacbaan bilowgiisa horeba waa isku soo laabteen waa maxay sababta ay markii la Shacbaanka gudihiisa dhan loo sameeyay way waxa jirtay marka hore way ku hamiyeen oo ay doonayeen inay sameystaan xafladaasi balse waxa soo dhax gashay oo istaajisay markii ay arrimo badan oo ilmahooga yar ku saabsan annagana aan u sheegnay dad kale oo iyaga oo dad wanaagsan ahna ay u sheegeen oo ku yiraahdeen xafladda waxa ay ku qurux badnaanaysaa markii aad ilmihiina keensataan oo si buuxdo aad noloshiina u noqotaan family is haysto oo buuxo familku wili waa qabyo familkooda wili waa kala dhiman yahay laakiin maalinta ay familkoodii u soo buuxsamo oo ilmihii yaraa ee Cabdinaasir oo Mareykanka u la geeyo markaas waxa ay noqon doonaan family buuxa oo complete ah oo dhameystiran
familka markaasi ay samaysan doonaan xaflad laakiin xagga dambe ka muuqda iyo tolo ma isaga ma ku soo noqsana ma ku soo ceshana may kuma soo ceshanayno waxaan rajeynayaa in aad mar labaad hadii aad doonaysidna aad dib ugu noqotid oo adiga aad fiidiyoga u soo daawatid oo aad ku laabatid si aynu u aragno amaba aan u helno hadii ay kula tahay commentiga ayaad noogu reebi doontaa waxyaabaha mucjisaad kale markaasi ninkan oo iskala kulmay inta badan ayaa waxa ay tahay dadka كل أنا وجعلهن أنا مسناي وايو قف كمركي أو كحسوسين هاي أيو كعينيا لكن قف أنا كحسوسين أو أن دن كالهين أو أن مراد كالهين أو أن كوجيدين سك السؤال وراك يوح أطهي ما بكو أركايا وأديك أون أيا إسكرفنا يو لكن سك ما بكو جيدا وحسودن أسميني سيد يوانا جاي إنه رش هذا ما بأركوا مركب مرة هدي بالله هذا الهاي وإن لحسوسته وحنا كلها شرماكم وحتى هاي قف هرمري وحتى هاي قف هرمري أو رنتي meesha aad taagan tahay waa meel ku dayasho mudan dad badanina waxaad u tahay hiigsi qof ay ku tashtaan oo runtii ay aad u jecel yihiin oo hiigsadaan inay isaga kale ay noqdaan ayaa tahay familkiina quruxda badan soo laabashadiisa Soomaali inta badan way ku faraxsan yihiin waxaana idin leenahay guuleysta meesha aad u socotiin oo horumarkiina iyo hankiina aad ka leedihiin waxaan idin leeyahay rabbi si nabad ah oo qeyr qabto iyo wanaag ha idinku geeyo biidnillaahi alkariim hadii ilaahay oo idmo laakiin waxaan doonayaa adduunyada way adag tahay sharma adduunyada way adag tahay maanta meesha aad joogtiin meesha aad joogi jirteen way ka duwan tahay waxaad joogtiin meel aan maanta runtii dadka inta badan aaminsan inay horumar iyo waxyaalaan way yaalaan laakiin dhibaatadiisana way daba socotaa oo waxa jirto dib iyo dheef isla socoto weeyaan halka annaga xageena ay runtii dadka nicam ku jiraan nimca lagu jira dadka aad uma wada gartaan laakiin qofka dalkiisa joogo ayaa garan karo nicam ayaa lagu jira qof walbana barwaaqo iyo bashbash ay haysataa ilmahaaga yar noloshiisa iyo controlkiisa sida aad rabtay ayaa yeeli kartaa markii aad ka baxdo laakiin qurbaha aad tagto dalalka reer galbeedka iyo Yurubna aad bay uga adag tahay inaad control saartid ciyaalka ama inaad controlshid ilmihiin hadda uu yar yahay hadii aadan haysanin qof aad ku aamintaan walow aan jecelahay inuu meel idin kula noolaado laakiin waxa la idinkaga baahan shaqo dheer waxa la idinkaga baahan nolol runtii markaas ka fiirso u baahan waxa la idinkaga baahan nolol runtii markii aad wanaajisaan wanaagsanaan doonto hadii aad xumaysaan xumaan doonto waxaan horta ku kalsoonahay dadka aad tihiin labadiinaba qofka aad tihiin aad baan ugu kalsoonahay Soomaalina way idin garanaysaa oo waxaad موجسين احترام إيو runtii wax aysan dadkaba noloshoodii iyo qalbigooga marnaba aan ka go'i karin waxaan idin leeyahay marka waxaatiin boqortooyo isbahaysatay waxaatiin dad runtii aad iyo aad noloshoodii yani uga run sheego waxa ay yihiin ma tihiin dad noloshoodii ay mugdi ku furan yahay Sharma iyo Maryumaanka waxaatiin dad biyur ah dad banaanka yaalo dad lagu dayan karo dad runtii han iyo himilada ay nolosha ay kala hayeen ku guuleystay aaba ku sii kala adkaataan laakiin hanka iyo himilada aad nolosha kala hadeen waad ku guuleysatay waxaan idin leeyahay horay u socda horumarkiina iyo noloshiina xagga hore idinka yaalaan marka waxaan rajeynayaa in aad si caafimaad qab ah nabad qab ah wanaagsan oo runtii aad ka fiirsateen inaad ku gaari doontaan nolosha higsiga leh ee aad wili bilowgeedii maanta aad bilaawateen oo aad ka rajeynaysaan inay idin sii qurux badnaato halka aad ku socotaan waxaan idin leeyahay waxaan rajeynayaa Ilaahay inuu meel wanaagsan idinkaga dhigo taageerayaashiina aad ku leedihiin sariicad waxaan rajeynayaa inay aamintan idin soo qabtaan laakiin kala saarkii hore dadka ku daatay waxaan idin leeyahay fiidiyoyada marka aad daawanaysaan aad u daawada waad mahadsantihiin dhammaantiin caalamka meel walba aad kaga sugan tihiin cizi iyo sharaf ku noolaada Ramadaan ayaa noo soo dhow khayrkeeda Allah ina waafajiyo inta aan muuqaalkani share gareeya la gareeyana si oo meel fiican u gaaro inta aan muuqaalkani mid xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga sii tagayaa nabadiino